السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasheeda qiimaha qaalow meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada shabakada wararka Sela 24 maanta waxaan idiin haynaa faallo gaar ah aan ku eegayno balwariyaasha jamhuuriyadda Somaliland ku xidhan cidda xidhxidhay dareenkan cabashada leh ee mar kasta ciidanka booliska shacabka Somaliland ay ka cabanayaan markii dhacdooyinka siyaasaddu ay soo kordhaan ama xisbiyada siyaasaddu ay iskhilaafaan waa maxay sababta xisbiyada mucaaradka ah ee uga cawdaan booliska Somaliland waa maxay sababta xisbiga muxaafidka ah uu mar kaliya wuxuu uga bedeli waayay booliska iyo nidaamkiisa booliska Somaliland waxaa loo baahan yahay inuu siyaasadda dhex ka noqdo laakiin taasi ma dhicin mar kasta xisbiga maalinta talada haya iyo xukuumadda jirta ayuu la shaqeeyaa eed kasta wasiirku wuxuu sameeyo agaasimuhu wuxuu sameeyo booliska unbaa kama dambaysta lagu dhaliilaa waayo waa cidda iyadu leh awoodda xidhitaanka booliska Somaliland wuxuu hoos tagaa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha wuxuu ka tirsan yahay xisbi waxaa xukumi kara barasaabkuna wuxuu ka tirsan yahay xukuumadda maalinta joogta iyo xisbigeeda haddaba su-aashu waxay tahay boolis aan madax bannaanayn oo maalinta xukuumadda joogta la shaqaynaya shacabku sideebuu ugu kalsoonaan karaa muranka shayga koowaad ee dhaliyey waa kaas taliyaha ciidanka biliiska jamhuuriyadda Somaliland Masar Dabagale waxaa laga soo bedelay ciidanka militariga jamhuuriyadda Somaliland markaad aragtay isagoo hadlaya mar kasta gacanta bidixda ayuu lulaa taasoo ka muuqato hanjabaad iyo hadidaad aad moodayso dhaqankii militariga inuu bilayskii u soo gudbiyey laakiin xukuumadda iyo madaxweynuhu waxay ku andacoodeen in taliyaha ciidanku uu hogaamin karo militari iyo bilaysba laakiin taas ma dhicin meesha waxaa loo garnaqayaa maalin kasta dad murankoodu joogto yahay waxaana socota shaqo 24 saacadoodba ah maaha militarigii halka cadow lahaa ee halka dhaqan ee kaliya kula dhaqmiyay bilayska Somaliland si kasta oo loo tababaro markay ficil qaadayaan waxaad arkaysaa iyagoo aytamaya waxaad arkaysaa iyagoo diriraya waxaad arkaysaa hadallo laaqina iyagoo ku hadlaya markii kamaraduhu ay soo duubaan haddaba su-aashu waxay tahay waa maxay 30 sannadood sababta tababarada loo siiyey ee wuxuu bedeli waayeen waa dhalinyaro waa dad waaweyn haddana weli ismay bedelin dhaqankii iyo calaamadihii dowladdii Maxamed Siyaad Barre marka la eego maanta oo ugu dambeysay waxaa ka cabanaya xildhibaan qaran oo cod lagu soo doortay oo ka cabanaya in taliyaha ciidanku uu sida annaga shaar ku gelin doonee inkastoo wada dhageysan doontaan annaga naqaan halka ku gelin doonee waxa weydiinaya taliyaha halkeed geynaysaa maad dilaysaa maad qafaalanaysaa waa ku weydiinaya kii soo doortay waxaan u sheegayaa haddii lay waayo bayooda muddo haddii nafta aan wad ilaahay mooyaane tura kale soo gaadho sanadka booliska loo raacay hanjabaadiisii annaga garanayna halkan ku geenin dhowna kelmadii ugu dambeysay ku gabagabeeyay wuxuu yidhi xerow ciidanku boolisku leeyahay oo dambe soo gelmaysid dabagale waxaan weydiinayaa xeryaha ciidanku mayna xeryaha ciidanka booliska ahayn kuwaan shalay lahaa miisaaniyadda loo kordhiyay mayna ciidanka boolisku in miisaaniyaddooda lagu dagaalamay maynay kuwaan dhisaya mayna habeen iyo maalin booliska ahayn inkastoo dhacdadan dhex martay taliyaha ciidanka biliiska jamhuuriyadda Somaliland iyo xildhibaan Abiib oo golaha wakiilada ka tirsan aanu taliyuhu wax ka soo saarin hadala laakiin waxaa muuqata in isfahan weyni uu ka dhex jiro marka muran siyaasadeed jiro ama dadweyne ama dad kala aragti ay murmaan markasta ciidanka booliska ayaa ah kuwa dhaliisha koowaad iyo eedda koowaad lagu dhaliilo haddaba waa maxay sababtu haddii uu run yahay hadalkan uu ku cabanayo xildhibaanku
uu leeyahay waa lay hadiday oo taliyihii ciidanka ayaa hadiday waa laba arrimood in taliyaha ciidanku uu iscasilo iyo inuu raaligelin siiyo dadkii xildhibaanka soo doortay haddii arrintaasi ay been tahay oo xildhibaanku uu ka sheegayo been xildhibaanka waxaa xaq loogu leeyahay isaga laftiisa in xasaanadda laga dhigo kadibna lagula xisaabtamo hadalkiisa hadallada noocan ee yoyotanka ah ee qaranku aanu weli ka samaysan wax siyaasada ee aad moodoon in miiska guudkiisa lagu dhammeeyo markii la wada hadlo ee la wada marmo waxaad moodaa siyaasadda somalilan inay maalin kasta maalinta ka dambeysa arrintaasi ay sii qarribayso waxaanad moodaa inaan weli laga samaysan wax dareen guuda iyo dan guuda oo arrintan lagaga hadlayo bilayska somalilan inkastoo hay-adda UNDP iyo hay-ado kale ay taageeraan haddana sidii la doonayay shacabku uguma kalsoona ilaa ay noqdaan dad dhexdhexaad ah waanu kuu qoraa maalin walba ka madax bannaan xukuumadda maalinta maalintaanu ku soo qabanana oo ka madax bannaan oohintaada iyo baroortaada laga baxay kuma noqonayaan raalli weligiiba ha xusuusnaado waanu soo qabanno cadaaladana waanu horgeyn wallaahi baan ku dhaartay ishaana waanu ku haynaa inina adeer sharciga kama weyna anna kama weyni ka kale hadlayana kama weyna sharcigaasaa qof walba la horgeynaya boolisku intuu sankaa iyo labadaa dhagood ku soo qabto ku soo eedaynaya ku talagal ama nin weyn haw xasaarad haddaad leedana meesha loo maro waanu naqaanaadeen haddii kalena waanu naqaanaa bulshadaasi way wanaagsantay dadka waanu hambalyeelaynaa si fiican bay noola shaqeeyaan laakiin dadkan iska buuqaya adeer